هذا يدري وضع هيسن ليه هبر شعلو ميدان وده هالشيء اللي ضوء أنا الله با dad badan oon cidi dooranno dhaqan sheeganaya oo caadaa waxa kamid ah inaanay isku kalsoonayn oo maxaa kamid ah in sawir la istaba qaado la yiraahdo halkaasaan marayaaye in sawiro dabeedna inta hees yar la saaro oo aada la guro la yiraahdo waa hebel oo waa sida qofka caynkaas hadaad aragto kalsoono dhaqan ma aha reerna Soomaaliya waa nin isiibinaya qofka oranaya maxaad Suldaan hebel iyo oran weydi oo saddexdaa uu sheeganayaba saddexduba khasab ahaayeen oo mid qoro la isla ogol yahay ama la doortay aanu ku jirin ama isagu iskiisu sharaxo ama sida imika badan ee inagu badan iska soo qaata umaamado iyadoo laba qof isugu imanin uu TV-sa soo taago ilaahay kuma garab galo waa xadiis ugu horeyn ilaahay baynu mahadnaqaynaa nimcada ayna siiyay marnabaadka waxaynu mahadnaqaynaa beesha samaysay casuumadan ballaaran maanta ee aadka loo agaasimay ee ay sharaftu ka muuqato ee la isugu keenay acyaantii iyo madax dhaqameedkii reer Soomaaliland boqorka oo hormuudka ah sida caadada ah hadiya jiraale lagu bartay si gaar ah baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu soo dhawaynaynaa oo u ducaynaynaa suldaanka cusub ee ay soo xushay beesha ballaaran beeshii xadaaradda beeshii aqoonta iyo guurtinimada iyo dhiiranida Cabdalla Saad Suldaan Saciid Sheekh Cabdikariin Awgeesh waxaan leenahay soo dhawow waa ku ducaynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in xilka lagu igmaday in ilaahay kugu asturo beesha ku soo xushay golaha ku keentay waxaynu leenahay waa ku mahadsantiin wax ka soo guurtideen oo ka soo tashateen inaad tala u dhiibataan nin ka soo tashateen tolkana u keentaan annaguna waa idin la qaadanay madax dhaqameedka Soomaaliland oo raggii u waaweyn ay joogaan sulaadiintii waa idin la qaadanay waa barbaarinaynaa waa la talinaynaa laba kelmadood ama saddex kelmadood baan ku soo ururinayaa anigu taladayda horta marka hore dhaqanka maanta halku mar ayaa waa ogtiin dhaqanku waa laga maarmaan haday oday guurti tahay iyo haday tahay caaqil iyo haday tahay sandalad waa wax diintuna ogoshahay dadkeenuna ay ku soo dhaqmayaan ilaa maalintii ilaahay abuuray waa aqoontii oo qof lagu ururiyay waxa lagu ururin jiray waqtiyadii hore qof lagu tuhmaayo garasho iyo dulqaad iyo dadwad iyo inuu wax kala saari karo sunnuhuna wuxuu sheegayaa ilaahay iyo rasuulkiisu way noo sheegeen qofku hadaan loo garanin xilka oo aan loo odhanin inuu wax ka dhiganaa inta reer ku tashado ama dad ku tashado qaran iyo qabiil bayaynu wax ka dhiganaa aan la odhanin hebel aan ka dhiganno hadduu ama isagu iskiisu sharaxo ama sida imika badan ee inagu badan iska soo qaata umaamado iyadoo laba qof isugu imanin uu TV-sa soo taago ilaahay kuma garab galo waa xadiis taladiisu baraka ma yeelato laakiin ninka la soo xulo ee laga tashaday leeyahay ninkaas aynu arinta u dhiibanaynaa ilaahay uu ku taageeraa Suldaan Saciid waxaanu leenahay mar hadii lagu soo xilay ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in ilaahay kugu garab galo dhowr arrin baan kaaga digayaa mid weeyaane horta kalsooni isku qabo waxa kalsooni darrada la yiraahdo iska ilaali waxyaabaha imika dad badan oon cidi dooranno dhaqan sheeganaya oo caadaa waxa kamid ah inaanay isku kalsoonayn oo maxaa kamid ah in sawir la istaba qaado la yiraahdo halkaasaan marayaaye in sawiro dabeedna inta hees yar la saaro
وهذا القرول هذا هو هبل هو صدا قف عين كاس هذا دركته كالصوم دقل ما حررنا الصوم وانني سيبينايا waxa kalaan ku gula talinayaa Siciid baa magacaaga la yiraahdaa suldaanna reer baa ku soo xulay haddii Siciid oo lagu yiraahdo hay hooy wayna jawaabtaa unaad heed tiraahdaa oonaad isu odhanin talowkaas muxuu suldaankii kaaga reebay kalsooni darraday ka mid tahay waxaad arkaysaa qofku odhanaya maxaad suldaan hebel iyo odhan weydi oo saddexdaa uu sheeganayaba saddexduba khasab ahaayeen oo mid quro la isla ogol yahay ama la doortay aanu ku jirin nabiyullaahi sulaymaan ayaa markuu warqadda u dirayay boqoradii balqaysa wuxuu yidhi innahum sulaymaana hadda nebi buu ahaa boqor buu ahaa haddana markuu warqaddaa qorayay magaciisu sheegayo nabiyullaahi sulaymaan oo malikul sulaymaan baa kula hadlaaya muu odhana wuxuu yidhi innahum sulaymaana wa innahu bismillaahi raxmaani raxiim markaa magacaaga iyo teetalkaaga kii lagugu yeedhaba ku kalsoonow waxaan hadalka ku gabagabaynayaa meelaan lagaaga yeedhin weligaa ha tegin maanta waxa badan nin cumaamadun la ordayo oo meelaan looga yeedhin taagan oo hadalka ha laygu qoro uun leh oo ha lay sawiro uun leh oo xitaa dumar iyo ciyaal dhexdood ka hadlaaya taasuna wax dhaqanku u caadaa maaha taliyaasha reer uxushee wax u caadaana maaha waxaan hadalkaygu ku gabagabaynayaa wax kastana waa lagu odhanayaae calooshaada saafi gare ee wixii aad qaban kartana qabo taladayduna waa intaa waxa kale halkan ka sheegaynaa dee macsuumaddii maanta tii koowaad qolada habar jeclaha qaadatay qolada habar jeclana waynu ogno imika dee reeraha somalilan waa u hormuud sidaasay wax walba ugu horraynayaan waana u ogollay waa tii inantii fanaanadda lahayd hadday dunidu wada haysan lahayd habar jecloo miidhan way wada heshiin leedoo waana la hubaa garxajisnaa tii labaad baanu weeyaan haddii alla ka dhigo oo dee shalaya maantaba taagan baa la ahaa waana ambasator sidaasaa ku talagelaysaan annaguna habar jeclun baanu dee cagta u saaraynaa sankuun baanu ku haynaa haddii lahayd in nafta inoo daaya maca qaramaynta ciidanka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu